السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أحمد محمد إبراهيم maanta waxaan rabnaa muxuu ahaa inaan isla barano koorso cusub oo loo magac baxday quick book in halkan ka bilaaba ayaa rabaa oo ah application ama software ay isticmaalaan ganacsatada iyo kambaniyada waaweyn marka waxaan rabnaa aad ayuu caawinayaa muxuu ahaa ganacsatada iyo kambaniyada waana software mataqaana oo u micno ballaaran aadna u caawinaya dadka ownerska ah oo kambaniyada iyo meheradaha ganacsatada yararka waa isticmaali karaan kambaniyada waa isticmaali karaan software-kan ama application-kan waa American system waaye America ayaa laga leeyahay quick book oo every year sanad kastana waa la mataqaanaa muxuu ahaa waxa lagu sameeyaa muxuu ahaa development oo waxba laga bedelaa waxbana lagu daraa muxuu ahaa marka quick book waxa jecel dadku qaarkood badan inay maqleen laakiin waxaan rabaa mataqaanaa maanta in isla bilaabno oo YouTube ka bilaabayaan jeclahay koorsadan waxaan rabnaa maanta in isla aragno mataqaanaa si kabaniga loo asaaso kabanigana loo sameeyo anoo raacaya nidaamka American system-ka muxuu ahaa marka ugu horeysa waxa loo baahan yahay qofka meherada ama kabaniga inuu install gareysan yahay software-kan ama ugu jiro laptop-kiisa waxaana muhiim ah saddex mataqaanaa siyaabood inuu sameeyo qofka accountant-ka oo ku xisaabinaya mataqaanaa meherada marka hore qofka waxa inuu sameeyo recording oo wixii qoray transactionada oo dhan dhacdooyinka dhan oo hadii wax laga iibsado meherada deen looga iibsado ama mataqaanaa oo deen looga qaato dii lacagta la siiyo markasta waa inuu qoro hadduu isagoo alaabta soo gatana oo bundle ka soo gato meherada ka soo gato ama meel kale ka soo gatana hadduu deen kusoo qaato iyo hadduu lacagta bixiyo markasta waa inuu qoro waa reporting baa ku xiga oo warbixin qofka laga helo qofkii mataqaanaa codsiga oo qoray waa in laga helaa reporting oo reporting waxay imaanaysaa markii recording la helo report baa la helayaa dan waxaa la helayaa waxa loo baahan yahay dadka managerska ama maamulaya shirkadda muxuu ahaa makabaniga ama meherada in mataqaanaa information laga helo muxuu ahaa information bila ah ama information mataqaanaa muxuu ahaa sanadla ah in meheradani ku sugan tahay profit ama loss in khasaare ku sugan tahay iyo ama in faa'iido ku sugan tahay even software-kan waxa uu ku sheegayaa daily mataqaanaa information maalinta inta alaabta iibisay inta alaabta khasaarta waxa isku ku sheegaya maanta waxaan rabnaa sida mataqaanaa kabaniga loo asaaso in isla barano marka warsa soo kacsaday oo soo kacsanay oo jeedeen kana ku dhuftay xagga waa ku dhuftay dan waxa leeyahay waxa meesha ku qoran tahay tagaya create a new company marka create new company ku dhufto waxa leeyahay way ku qoran tahay express start ayaa leeyahay marka qiyaabo badan ayaa loo asaasaa iyo qaabo badan ayaa loo asaasaa xaggan ay ku qoran tahay business name businesska ganacsigiisa ganacsiga ku qoraysa magaciisa meherada company waxa loo tusaale waxa la dhahaa muxuu ganacsiga Soomaaliya supermarket waa la dhahaa leeyahay waa supermarket Soomaaliya supermarket baa leeyahay waa lahaa sayaabadan ayaa loo asaasaa halkan waxaa ka dooranaya other baa leeyahay ka dooranaya other baa ku qoraya other number leeyahay halkan waxa business ganacsiga wuxuu yahay marka ganacsiga waxa dhahay waa maxay waa sole partnership waa ganacsi hal qof iska leeyahay maamulayo tan waa maxay partnership waa mataqaanaa dhowr qof iyo waxa waaye in ka badan waaye kan waa maxay waa single member waa tan oo kale muxuu sole partnership tan waa isku mid tan waa maxay waa multi member wax saas ma waa partnership oo kale laakiin partnership waa limit waa xaddan yahay 5 qof 4 qof إلا واحد قبل سقال قف لكن ملتي ممبر وما حسك shareholders ka hor imaanaya hoos imaanaya oo qofkii members kamid ah ganacsiga wuxuu awoodaa inuu mataqaana dadka la sukeeno waaye laakiin wax la ganacsiga waa maxay waa sole proprietorship waaye dan halkaas wuxuu soo qaaray wuxuu create new company hadda company waa asaasi kartaa halkan waxa gelaysa employee identification number waxa gelaysa waxa leeyahay 1 2 3 4 5 6 7 8 baleeyahay halkan waxa gelinaysa address ganacsiga gelinaysa ilaa halkaas xagga city magaalada gelinaysa xagga state ka yahay country-ga waxa leeyahay USA waxa gelinaysa phone-ka marka inta geliso waxa leedahay create company-ga ayaa asaasaya already wuxuu yiri Somali supermarket waa asaasan yahay oo muxuu ahaa waa asaasan yahay muxuu ahaa company-ga wax ka bedel laakiin waxa leeyahay waa muxuu ahaa company asaasan bas company-ga hore ayaa u sameeyay marka waxa leeyahay Soomaaliya supermarket 2 ayaa leeyahay waa qaybtii labaad ayaa leeyahay dan create company ayaa leeyahay waa ka hadda way aqbalay oo hore ayuu asaasnaa Soomaaliya mataqaan supermarket hadda hore ayaa mataqaan 10 practical ku sameynayay marka uu diidayaa hadduu company-ga asaasay magaciisa ka aqbali maayo laakiin waxa ay leedahay Soomaaliya supermarket 2 qaybtii labaad waaye part 2 ayaa inuu hadda waa ka asaasmay company-gi boqolkiiba 50 ayuu marayaa marka siyaabo badan ayaa loo asaasaa iyo qaybo badan ayaa loo asaasaa laakiin qaabkan raacayo oo American system-ka
markay qaanada ku soo baxdo halkan ayaa tagaya home ku qoran tahay ama tanas ka saaraya halkan ku qoran tahay home tagay home waa tan waaye waxaan oo dhan waa maxay waa daaqadihii aan waxyaabaha aan isticmaalahaa waaye oo mataqaanaa farsamada ama dhacdooyinka ku sameyn lahaa markaas saas ay horta company loo aasaaso waa waxay soo baxay Soomaaliya supermarket 2 ayaa soo baxay saas ayaa loo aasaasaa company-ga marka asaasto waxa muhiim ah 4 account inaad samayso oo 4 account marka xaggan ayaa ku soo qortay waa maxay waa in 4 account samaysaa creation oo accounting oo ah mataqaana creation of 4 account inaad samayso go to chart ayaa tagaysaa name of account waa ku qoraysaa xaggan waxa tables of account the cash or bank way capital way equity way purchase ama cost of goods sold sales ama income way afarta mataqaana waa inaad asaastaa xaggan ayaa tagaysaa muxuu ahaa go wuxuu ku yiri muxuu ahaa waa inaad tagtaa chart of account waa inaad tagtaa marka chart of account tagto waa inaad afartii mataqaana company afartii magac arkeen waa inaad asaasnaa dan waxa leeyahay new ayaa leeyahay dan bank ayaa ugu horeeyay bank waxa leeyahay bank default ahaan ugu jira halkan ayaa ku qoraya content cash ayaa ku qoranaya dan waxa leeyahay save and new halkan waxa ku xigaya bank waxa ku xiga waxa ku xijinaya mataqaana equity ayaa ku xijinaya equity account waxa ku qoraysa halkan waxa ku qoraysa capital dan waxa leeyahay save and new ayaa leeyahay dan waxa ku xijinaya cost of goods sold ayaa ku xijinaya or income ku xijinaya oo ah save and new ayaa leeyahay dan waxa ku xijinaya cost of goods sold ayaa ku xijinaya dan waxa leeyahay halkan ku qoraya muxuu ahaa purchase waa ina alaab soo gataa ama si iibinaya save and close ayaa afartii account waa asaasay oo isla arkaynay marka laba account oo kale ayaa jira asaasaysa laakiin casharka hadda inaha ayaa ku soo koobaya labada account asaasayo casharka ku xiga ayaan ku baranaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.